ayna suura gashay in aan la kulno gudoomiyaha guddiga caafimaadka baarlamaanka federaalka Soomaaliya xildhibaan Dr. Cabdilcasiis Sheekh Yuusuf waan kula kulmay state-ka Minnesota isla markaana aan wax ka weydiiyay siyaasadaha guud ee dalka soo arintaasi ka hadlaya waxa uu yiri walaalle waa mahadsan tahay wadankii anu haatan laba week baan ka jooga de wax badanna waa ka jiraan wadanka dhexdiisa okay siyaasadaha guud ee dalka Soomaaliya ka jira bal aragti guud si dadweynaha Soomaaliyeed ee daafaha caalamka jooga uga qaataan ra'yi mid ah bal adigu bal fasiraad yar oo kooban naga siiyo Soomaaliya xaaladeeda guud maraaxil kala duwan oo aad u fara badan bay soo mareen dawlad la'aan dawlad jirtay oo markaa dadka iyo cabcaburisa dawlad aad u jilicsan oo aan institutions adag lahayn maraaxil fara badan bay soo martay markaan haatan waxa jira waa dawlad aan ku meel gaar ahayn laakiin xaqiiqatan mushkiladda Soomaaliya ka jirta hadda waa hoggaan xumo sida aan anigu isleeyahay hoggaanka ayaa wuxuu yahay mid jilicsan aanan hoggaamin karin dal dhibaatadaas soo gaartay oo muddadaas dawlad la'aa dawladihii ka horreeyay haddii ku meel gaar bay ahaayeen limitation bay lahaayeen markaa lama eedayn karo madaxda sare lama eedayn karo oo dawladahaas markaan haatana waxaa dadka Soomaaliyeed oo aan anigu ka mid ahay ay eedaynayaan inaanay madaxda sare hoggaan suuban ayaan ku wadin dadka iyo dalkaba oo ay la dhacdhacayaan maxaad ula jeedaa macnaha hoggaan suuban ama jilicsan waxaan ula jeedaa hoggaanka sare oo wadanka Soomaaliya wuxuu ku guuleysan waayay siyaasadka midka regionalka iyo midka internationalka regionalka markaan ku leeyahay waa Soomaaliya iyo dariskeeda waa ku guuleysan waayay waana waxay ila tahay mid loo baahnaaba in kriteeriyada ama waxyaalaha lagu xirayo qofkii Soomaaliya madaxweyne ka noqonaya in lagu xiro inay waajib ahaan lahayd inuu yaqaano siyaasadka regionka East Africa la yiraahdo waa lagu guuleysan waayay waa lagu khasaaray madaxweynaha iyo prime ministerkii hore labadooduba waa ay ku guuleysan waayeen oo arintaa waa ku fashileen markay ku fashileen dahiya waxaa noqday prime minister markaasaa ku leedahay haddii wuxuu noqday victim maxaa yeelay baarlamaanku wuxuu kala laabtay codkii kalsoonida uu siiyey walaakiin hadda ninkii la wadaagayay falka oo madaxweynaha ahaa oo asaga la fashilmay wali waa joogaa marka arintaas mid lagu fashilay ayay noqotay waa siyaasadka regionalka oo East Africa la yiraahdo sida loola dhaqmo deriska danaha ay kale yihiin oo la ogaado danta adigu aad ka leedahay iyo wixii la mid ah tan internationalka sidoo kale loogu fashay waxaad ogtahay in westernku yani Europeanka kaliya orane ay pledging sameeyeen ama lacag aruurin ciidda ka badan markayna ogaadeen corruption-ka iyagu heerku maray markayna ogaadeen in lacagta ilaa 10 milyan oo bishii walbaba soo gasha wadanka Soomaaliya laga bixin waayay feedback ama xisaab celin oo muddo 3 goor ah ay istaagtay lacagtaasi maxaa yeelay waxa la waayay حساب علم بلغ وهي العقد هذا بدأ تركيا كونانسا إمارات العربية بدأ كتمان هي ماذا كلا ترى صدق قربي استكت مركا ده فيدباك حاجة لقى بحياة حاجة بس حساب علم لقى سمية ما بوريك شو بحرط ملاك شيء بيكش هدي شيء بكشنا فيدباك مياه كبير كذا شيء بيكوشي تبي هدي كذا activities باللغة تلاقى لنا قالهاس وكمدي هاي أمنه وكمدي هاي budget support وكمدي هاي social services انت وحلقات دونية إن الله ينتي العقد الله تلاقى
in aad xisaab celin ka celisid marka lagama celin marka waxaad arkaysaa hoggaanku siduu yahay waa hoggaan leexday oo waddadii ka leexday oo meel cidla ah iska tumanaya iska soconaya waddadii wadda aan lahayn waa xag dhaqaale waxaan ka sheekayey waa xag siyaasadeed waxaan ka sheekayey waxaan ka sheekeeyoo kale waxa weeye siyaasadda internationalka hadda lacagtii ayada ahayd oo la baleej gareeyey shilin laga heli maayo maxaa yeelay midaan yarta sidaa u isticmaalaysaa lagu arkaya okay waxaad tiri waxa uu ku fashilmay siyaasadii dibadda tii gobolka ayuu ku fashilmaa tiri adigu waxaad ahayd wasiir hore haddana waxaad tahay xildhibaan maadaama aad wasiir hore ahayd siyaasadahaas regionka iyo kuwa internationalka miyaydan dadkii ka oo macnaha arrinkaasi aasaaskeeda dhigay miyaydan ahayn adigu ka mid ahayn maya aasaaska hadba dadka jooga ayaa mas-uuliyadu ka saaran tahay dadkan hadda jooga waa guruub yar oo la yidhaaho dam jadiid dadka kaleetana in uu meesha kala shaqeeyaba aan ogolayn dowla maxaa la yidhaaha dowla waa wadaag laakiin lama yidhaaho guruubka aniga iyo dhowrka nin oo 3 iyo 4 iyo 5 keliya ayaa talinaya lama yidhaaho dadku wuxuu ku wada socdaa waa sharci la dejiyey waxaanu ku dhaaranay annagu waa dastuurka iyo shuruucda kale oo u degan qaranka madaxweynuhuna sidaasoo kale ku dhaartay walaakiin ma uusan fulin xaqa oo wuxuusan u fulin ma ay dhicin ee wuxuu leeyahay dad yar oo anigu aan garanayo magacyada haatan aan sheegaya ma jecliinaan ku laalaabtee unbuu maaragtay xilkii kula daba wareegaya oo highly unqualified okay xildhibaane waxaad xustay in leader xumo ay jirto Soomaaliya waxa ay soo martay marxalado kala duwan xilligii gumaysiga xilligii laga baxay ee istiqlaalka iyo xilligii xornimada la qaatay intaba waxaa jirtay madax soo maamuleysay markii aynu ka soo bilaabno madaxweynihii ugu horeeyay aadan cabdulla cismaan si caadi ayuu xilka uga degay laakiin wixii ka dambeeyay madaxweynayaashii soo maray si aan qurux badnayn ay xilka uga degeen guud ahaanba ama kumeel gaar ahaadaan ama ha ahaadaan mid aan kumeel gaar ahaynba haddaba leader kasta oo dalka hoggaankiisa qabta waxa lagu kiciyaa buuq iyo qaraanqal qaarkood waa la dilay sida Cabdirashiid Cali Sharmaarke siyaad barra dalka xoog baa looga saaray xoogun ku qabsaday Cali Mahdi Maxamed si aan sax ahayn ayaa lagu doortay si aan sax ahayn waa dawladdiisa waa lagu weeraray Cabdi Qaasim waa la soo doortay si waa la hareereeyay muxuu ahaa Cabdullaahi Yuusuf sidoo kale waa la hareereeyay Sheekh Shariif si aan qurux badnayn ayuu xilka uga degay si aan qurux badnayn xilka uu ku soo fuulay haddaba madax kasta oo dalka qabata haddii ay saluugsan yihiin way noogu dooranaysaa idinka xildhibaanada hadda matala dalka doorashada iyo waxa jira waa kala laba anu waxaan karanahay madaxdii Soomaaliya soo hogaamin jirtay inay wax badan tareen tan ka hor inaan mushkilad ku jiro ma aanan dareemin ilaa iyo taariikhda aad ka soo sheekaysay oo cariiqa oo dhirka badan haatan waxaan dareemay annaga mushkiladan haysata haddaan slogan sir ka dhigo waxa weeye mushkilad hoggaan ayaana haysata waa haddaan in yar halku dhag ka dhigo wax Soomaaliya haystaa wax kale ma ahan waa mushkilad hoggaan taasaa waxay toosin ka dhig hadda ma toosinaysay طبعا waxay toosin ka dhig security-ga ama ammaanka taasaa waxay soo toosin ka dhig in ay ciidan xoog leh la samaysto taasaa waxay toosin ka dhig xagga bulshada service wanaagsan adeeg wanaagsan in loo fuliyo taasaa waxay toosin ka dhig dowlad wanaag iyo rule of law in lagu dhaqmo marka waxa aan la'nahay anuu cimrigaas aan jiro arrimaha ka soo sheekaysayna waa joogay haatan ka hor walwal weyn ima gelin oo ku saabsan xagga hoggaanka waxaan hadda dareemay hoggaanku inuu nala haray meel khatar aan ugu wado okay haddii oo hoggaanku uu kula haray marka uu dadkii doortay ayaad ka mid tahay
haddana waxa aad leedahay hoggaanka ayaa nala haray haddaba dadka Soomaaliyeed ma xilli aad adigu macnaha kala oo aan ahayn oo ayaa jiro oo macnaha aad caadi noqonaysaan ma jiro baarlamaanka doorashada xageeda scenario Soomaaliya sida dugsiyontayba qofkii jago sare qabta sida madaxweynaha iyo prime ministerka kuma soo noqdo well maxay waxa laga tabanayo iyo wixii la doonayay qofkaas inuu qabto iyo hoggaankii samaa oo la dhaliilayo kuma soo noqdo hadda aan garanayaa rag badan oo aan garanayo prime minister iyo madaxweyne soo noqday iyo tartamayo I don't believe inay soo noqonayaan maxay yeelay waa dhaliisha iyo waxa loo qabo oo fara badan marka doorashada waa la doortay haatan madaxweynaha jooga well anu waa doortay laakiin miyaan aqaan marka waa hawshii dhex galay oo mas'uuliyadii qaaday oo hoggaanka u qabtay ayaa dhib ka arkay marka waxaan soo marayba soo mar cabsidayda weyn waxa weeye nafaqa madow oo aan nuur ka dahayn oo aan ku soconno hadda marka dastuurkeeduna ma qabo mar haddii qofka la doorto si uu shaqadii ka soo bixi waayo faraha laga qaado ma qabo annaga dastuurkeedu waxa weeye shaqadii hadduu ka bixi waayo ka tago biay xaalin min al-axwaal uu uga bixi waayo ama ha ahaato cudur ama ha ahaato geeri ama waxa ahaato isagoo qaban waayey oo ku qaban waayey leadership la'aan iyo aqoon la'aan whatever it is okay xildhibaan hadda sida aad ka hadashay waxaad soo celcelisaa oo inuu macnaha leaderkii uu yaraa hooseeyo okay ha hoose laakiin ma la dhihi karaa group cusub ayaad la doonaysaan xilka oo macnaha oo horeyba macnaha ku fashilmay siyaasadda Soomaaliya ama hadda aad doonaysaan inaad macnaha hadana aad soo saartaan oo barnaamijkiinaba waxa weeyaan dad cusub ayaad u ololaynaysaa nimankiina hadda ay ka soo horjeedo madaxweynaha taasi ma jirto anagu ciidaan u ololaynayna lama arko laakiin madaxweynaha isaga laftigiisu waa nala qiran yahay inuu hawsha qaban waayo ilaa hadda ma hayno inuu isaga laftigiisa inay wax ka qaldan yihiin oo uu ku fashilmay leadershipka wax weyn uu ka qiran yahay marka hadduu ku fashilmay maxaan dan Soomaaliyeed kuma jirto ha joogo ilaa hadda isagoo qiranaya ma maqal laakiin adigu baad siyaas waa raadiga anaba ku yiri waxbuu ka qiran waxbuu ka qiran waxa kamid ah مثلا inuu wax ka qiran yahay waa madaxweynihii dalka weerar baa lagu soo qaaday xagga ammaanka gurigiisa lagu galo waa lagu sigtay in gurigiisa la galo laakiin masaajidka iyo dad baa lagu laayay gurigiisa ku dhagan marka waxay ahayd in wax weyn oo isbedel uu yimaado oo gaar ahaan hay'adaha amniga xaggeeda uu ka yimaado taasoo kale waxaa dhacday in dawladda oo dhan isku bedesho waayo waa mushkiladan macquul ah iyo غير macquul ah marka qaadir buu ku noqon waayay asagoo executive iyo prime minister kiisi inay wax bedel ah haba yaraatee sameeyaan waa qiran yahay asiga laftigiisu inay tahay fashil qiyaadi ah ama fashil hoggaan inuu qiran yahay waxa haatan xildhibaanada aanu ka mid ah ku haystaan waa iyada okay haddii aan ka gudubno dhinacaas adigu waxaad ka mid tahay xildhibaanada Soomaaliya dalka Soomaaliya waxaa joogo ciidamo ajnabi ah oo dawladihii ku meel gaarka agreement la galeen dawladan hadda jirta kulay adiga kamid ah oo xildhibaanadii kamid ah ilaa hadda agreement cad oo lala galay ma hayno haddaba baarlamaanka isaga ayaa raali ka ah in agreement la'aantaas ay ciidamadan ay joogan meel la dhigi karin ويا دكتور نوائري ورت برلمانك corruption لعقيد لقمة إيديو وهذا العك مشغيل برلمانك مفليو فلين كمشغيل وحكومته يبريسيدنسي وحا executive أما لانت فلينتا لبدا سالي سكويرا أيها كاب سامي أيها جرم واي أيها فهن سنين إن أي باتي كان نقدان كومان كونكا عسكري وأجنبيكا وشوكتا دالكينا إنay agreement ka baarti ka noqdaan kamana aan oo anagu aan ogsoon kuwii ka horreeyay oo ku meel gaarka ah waa ka ahay laakiin kuwaani kama aha baarti kumaan kunka askari oo ajnabiga oo Soomaaliya dhex jooga
waxay ku yimaadeen iyo agreementkeeda midna xataa iban waxaan ku sheegayaa sida ay ayaga u waardiyeynayaan way waardiyayaan inaanay qayb ka ahayn oo aanay dhihi karin halkaaniga waardiyay halkaan dhib ma leh ma dhihi karaan leannu waanay agreementkaasani qayb ka ahayn marka dhaliisha ayay ka mid tahay isu soo kortay oo noqotay buuraha ayay ka mid waxaa tahay gudoomiyaha guddiga caafimaadka baarlamaanka Soomaaliya 24 sano caafimaadkeeda ilaa hadda wax rikoor oo macnaha caalamiyan oo lagu qanacsan yahay lama hayo ma jirtaa wax rikoor oo laga hayo caafimaadka Soomaaliya oo aad badan baan ka hayaa maxaa yeelay laba goor ayaan anigu ka noqday wasiirka caafimaadka hase ahaatee anigu haatan kama shaqeeyo oo ma fuliyo wasaarad baa jirta qaybo kale jira anigu markaan haatan waxaan ka shaqeeyaa waxa weeye inaan la xisaabtamo xukuumadda dawladda inay hayso hawlaha caafimaadka iyo inayaan hayn wax badan oo mucaawinana waa caawiya oo tan iyo tan laakiin wax badan uma jiraan maxaa hortaagan waxaan wax badan u jirin wasaaradda caafimaadka anigu markii aan ka tegey wixii ka dambeeyey horta waa la baabiyey ministry ma ay ahayn directorate bay ahayd macnaha waxaa weeye wasaaraddii waxaa lagu daray wasaarad kale oo laga dhigay taasoo sharci darro ahayd dhaliishay ka mid tahay hoggaanka waayo wasaaraddaas lama baabi'in karin oo ayadaa waxay leedahay government ordinance marka la iskama baaban karo ayadaa baarlamaanka lasoo marsin waa dhacday marka wax badan oo hadda la sheego oo la falanqeeyo ma jiraan macluumaad weyn oo kaamila sayan waa ka haya okay caafimaadka Soomaaliya haddii aan sii dhex galno dalka Soomaaliya waxaa jira hay'ado ajnabi ah iyo kuwa macnaha local ah oo ka aasaasmay 24 sano misaal hay'adahan ku sheegay waxa kamid ah isbitaallo oo dadka macnaha si private isaga daweeyaan iyo kuwa dawladdu ay lahayd oo hay'adaha caalamiga ay maalgeliyaan oo ay dawada ay bixiyaan haddaba arrimahaasi qaabkay u shaqeeyaan wax faahfaahin ma laga siin kartaa waana nidaamsanayn laakiin intuba dadkay wax tarayaan hadduu private yahay waxay tahay inay wasaaraddu inta nidaamso nidaamka ay raacaan haddii kale waxaa loo baahan yahay cisbitaallada ama adeegyada public healthga dadka Soomaaliya in ka badan 90% qaadir kuma aha inay inta private aadaan iska daaweeyaan hataa hadday even visit ka bixiyaan dhakhtarka ma ay bixin karaan waxyaalaha kale oo requirement ama looga baahan yahay sida x-ray sida laboratory sida wixii la mid ah marka dadkan Soomaaliya waa dad u baahan in la siiyo adeeg caafimaad oo aan lacag laga qaadin adeeg caafimaad oo aan lacag laga qaadin laakiin kuwan private-ka oo aad adigu sheegtay wali waxbay tarayaan qofkii qaadir ku ah waa inuu inta aado iska daaweeyo waxaan anigu xataa wax badan inay kaalmeeyaan qofkii aan qaadir ku ahayn iyo wixii la mid ah waxaase loo baahan yahay inuu qaranku leeyahay social services iyo public health policy inuu leeyahay ayaa baahi loo qabaa marka aatan koor wasaaradda waa baabaaday ma jirin wixii hadda ka dambeeyana uma muuqdo rajo weyn uma arko maxaa yeelay madaxdu ma aaminsana in loo baahan yahay caafimaad iyo education okay haddii aan caafimaadku loo hayn wax oo macnaha muxuu ahaa oo ogolaansho ah oo ay dawladdu aysan raalli ka ahayn ama xukuumaddu raalli aysan ka ahayn guddiga baarlamaanka muxuu qabanayaa guddiga baarlamaanku waxay la xisaabtamayaan wasiirka iyo dadka caafimaadka ka shaqeeya iyo prime ministerka maxaad qabateen marka hore waxaad noo keentaan hawshiina ama 1 sano ama 2 sano ama wax aynkaas ah intii ay ku keeneen ayaad ku kontrooleysaa intaan ma idnaan qaban maxaad u qaban weyday xagga ma idnaan qaban maxaa dhacay iyo wixii la mid ah laakiin guddiga caafimaadku waxma fuliyo okay wax oo fikira ma ka haysataan dhaqaatiirta ama hay'adaha ajnabiga ah ee ka howlgala dalka Soomaaliya guud ahaan iyo waxa ay ka shaqeeyaan anigu wax badan oo fikradahan ka haystaa waa
arrintaas aad iyo aad bay u dayacan tahay. muddo hore waa la isku dayay in la nidaamiyo laakiin waqtigu macfin. qofkii doonaa yimaada yidhaaha anigaa doctora, anigaa wax qalahaya, anigaa wax waxaynaya iyo wax samaynaya, xataa iban hay-adaha iyo wixii la mida. waa arrin u baahan in dad yaqaanaa ay hoggaamiyaan oo ka guulgaaraan. okay, mar haddii caafimaadkii sidaa uu u burbursan yahay, ciidankii qaranka uu lahaana uu burbursan yahay oo aan awood lahayn, qaranka goormuu istaagaya? dee dhib baa haysta qaranka, allah ka bixiye. مثلا ciidanka adigu aad sheegaysid hadda sidaanan ogsoonnahayba waa nala ka kaalmeeyaa dhaqaalaha ciidanka. anigu waxaan ogahay dowlada westernka inay lacag bixiyaan oo ciidanka siiyaan oo ay leeyihiin ku dhisa ciidanka. waxaan la arag baarasigii iyo hoggaankii dhisi lahaa ciidanka ayaa meesha ka maqan. laakiin inta ayna siiyaan wax waa ku dhadhabi karaa oo yagleen waa lagu samayn karaa. marka waa iska nasiib xumo. waxaa jira Soomaaliya waa la kala go'an yahay xagga ciidanka aanu leh. gobollo waxaa jira ciidamo joogaan, ciidamadaas dowladda kuma xigno. waa ciidamo xoog leh oo haatan ka hor al-shabaab la dagaalamay. gobollada dhexaa ka mid ah dowladdii ayagii bay cadowsanayaan oo la dagaalamayaan, laakiin la furi maa. iyaguna waa ogol yihiin in ay dowladda ka mid noqdaan. hawshaasi waa hawl aan la nidaamin ee si aad iyo aada u dayacan. waxa dayacanna waa hoggaanka hoggaaminaya waddanka oo aan hawshaa iyadaa ka soo baxay. waxaad ku soo celcelinaysay ilaa dhowrkii daqiiqe ugu horreeyay aan ka sheekaysanayna hoggaanka inuu macnaha uu liito. okay, ma jira hoggaan cusub oo dalka iyo dadka ka saari kara dhibaatada oo adigu aad doorayso? ma jira? maya, ma jirto. anigu haatan hebel baa ku wanaagsan oo hebel ka wanaagsan ma lihi. hadba wixii yimaada ayaan evaluation ku samaynaya. waxaan ka hadlayaa waa qiimaynta hoggaanka hadda ingiliiska. okay, hoggaankan haddii hadda xilka laga qaado oo ama iska casilo ama macnaha impeachment baarlamaanka uu ku sameeyo, miyaysan ahayn in dib loo noqdo dhowr bilood oo kale iyo dhowr sanad kale in dib loo noqdo? miyaysan ahayn taas? miyaysan caqabad? taas meesha kuma jirto. wuxuu waa system ay qof maaha. haddii qofka la waayo systemkii dowladnimo wixii garanaya sidiisii buu u soconayaa. qofka importantka ahi waa qofka markuu xafiiska joogo asaga waajibkiisa guta. laakiin haddii qofkii la waayo qof kale la waayi maayo. okay, ra-iisul wasaare saacid, waxaad ku eedaysay inuu xilkiisa gudan waayey. xilkii baad ka qaadeen, ilaa ay haddana waa taagantihiin, madaxweynaha u soo jeesateen. taas miyaan loo qaadan karin burburin keliya? maya, burburin ma ahani. waa la xisaabta. waa shaqadeen. annagu shaqo kaloo aan haysano lama arag. waa inaan qofka la xisaabtanaa. hadduu shaqadiisa ka soo baxana ku ammaanaa, hadduu ka soo bixi waayana aan ku qabsano. okay, maxaa sharciga qodobo oo arrinkaasi ka sheekeynaya oo aad u haysaa aad ku eedeynaysaa inuu hoggaanka u liito? waxyaalahaan ku eedaynhayo miya? waxyaalahaan ku eedaynhayaa waa fara badanta. hadda ka hor waxaan ahay 93 xildhibaan. marka waxaan qaadir ku ahay 93dayadaasi in qof walbaba uu sheego eedayn tii hore ka bedelan. macnaheedu waxaa weeye 93 impeachment wey. 93 hoggaanka lagu eedaynayo. marka waa wax fara badan. waa waxaanan hadda meeshaan aanan ku dhamaystiri karin oo aad iyo aad u fara badan. waa waxa aan kuu sheegay oo aniga ay cabsi geliyey xaqan. okay, haddii uu hadda uu diido go-aanka aad usoo jeediseen ama talooyinka aad usoo jeediseen, ma jira tilaabaad qaadaysaan adigu kooxdiina aad kasoo horjeedo misaal oo kale? maya, horta koox maahayni. waa baarlamaankii oo dhan oo madaxdiisii ku jirto oo dadkii ay aada u fara badan yihiin ee koox maahin. marka haatanna sidaasaan le yeelaynaa ku dheecaan maayo. laakiin waa sidii waqtiga iyo taanku. okay, dadka Soomaaliyeed ee ku daawanaya ama ku dhageysanaya maxaad soo jeedinaysaa? waan leeyahay Soomaaliyey, waa inaad wax walbaba ogaataan. waxaan u kala qaybsanayn qalbiyaalad. waa isdilay, dhibaataana soo gaartay. waxaan hadda ogaanay waxaasoo dhan inayan wax macnaa noo samaynayn.
waa inaad ogaataan la xisaabtanka madaxda lala xisaabtamaya inay ahayd wixii naga maqnaa iyo sababihiina burburiyey. ku raalli noqda sida baarlamaankiinu wax u wado, waa si macno idiin samaynaysa dowladnimadiina iyo in la raaco dastuurka aatan idin yaala oo haddii alla ka dhigo aad baasin doontaan. waxaan gaar ahaan aan fariin u faraya oo unaadi waa dadka bannaanka jooga. dadka bannaanka jooga waa inay xaqiiqada ogaadaan. kuwaan haatan meeshaan ka hadlayo jooga waa Minnesota, Minneapolis iyo dhammaanba caalamka kuwa jooga. xaqiiqadu waxaa weeye waxaan baarlamaanku waa idinka ogyahay, wuxuuna doonayaa wax wanaagsan, dalkiinu la rabaa, adinku idinla rabaa. waxa uu wadaana waa wax sharci ah, waa wixii aad u igmateen. waa inaad had iyo jeerba baarlamaanka garabkiisa ah. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha guddiga caafimaadka baarlamaanka federaalk Soomaaliya xildhibaan Dr. Cabdicasiis Sheekh Yuusuf oo igu waramayay magaalada Minneapolis 21 bishii 5 2014.